wasiirka wasaaradda diinta iyo qaafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdillaahi Axmed ayaa ka qayb galay xafladda daahfurka dhismaha xarunta dayactirka kutubka Qur'aanka Kariimka oo laga dhisayo magaalada Boorama oo ay gacanta ku hayso Jimciyadda Nuurul Islaam. Munaasabadan lagu daahfurayay dhismaha xaruntani oo ka qabsoontay magaalada Boorama ayaa waxa ku wehelinayay wasiirka wasaaradda diinta iyo qaafta Soomaaliland maamulka gobolka oo qaar ka mid ah isuduwayaasha wasaaradaha laamaha dawladda gobolka, culimo diin, ganacsato iyo haween. Xafladani ayaa waxa ugu horeyn hadalka furay gudoomiyaha Jimciyadda Nuurul Islaam al-Khayriya Sheekh Jamaal Yuusuf Maxamed waxaana uu ku dheeraaday sababta ku dhalisay dhismaha xaruntani iyo ujeedada ay ka leeyihiin. waxaynu ku jirnaa laakiin sideeba loo badbaadin karaa kitaabka Qur'aanka Kariimka marxaladda marka uu marayo. Mushafka wuxuu ku jiraa marka wax weeyaan gidaafada khashin buu dhaxgalay. wallahi waxaad arkaysaa isagoo wax weeyaan saxaradu ku dhagsan tahay. markaan soo bilownay maanta waxaynu doonaynaa inaan dhismaha quruxda badan leh inaynu dhisno. muddaan dhex soconay markaa gobolkoon islaahay waraadhe waxaan u baahnahay in dhismihii aynu bilowno. qof kastayba aw halkiisa dollar diray aad u wanaagsan oo waa la diray. laakiin xajmiga aynu u baahannahay baa ka weyn. waxaan nidhi waxaynu u baahannahay dhulkii mar haddaynu haysano Ilaahay subxaanahu wa ta'aala fadligii weeyaane inaan dhismaha ugu qurux badan ee Qur'aanka lagu sharfayo ee lagu karaamaynayo inaynu dhisno. sidoo kale waxa iyaguna hadalka iska daba qaatay isku duwaha wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta Soomaaliland ee gobolkan Awdal Saleebaan Aadan Samatar oo iyagu ku deeqay dhulkani laga dhisayo xaruntani sidoo kalena sheegay inay diyaar u yihiin ka wasaarad ahaan inay ka qayb qaataan. waxaan u ballan qaadayaa xataa shaqaalahayga aan wasaaradda dhulkan siisay jumciyadda intaan ku noqdo inay waxay kaga qayb qaadan karaan anigoo ka codsanaya inaan u bandhigo wixii ay kaga qayb qaadan karaan aan lacag ahaan ugu soo wareejino hadii la yiraahdo. waani ku dadaaleen ma sha Allah waan ugu mahadnaqanaa Jimciyadda Nuurul Islaam Jimciyadul Khayr waxaan ka suganaa dadaalkayga inay si laba jibaarto. sidoo kale Marwo Faaduma Saciid iyo qaar ka mid ah culimada diinka ka soo qayb galay munaasabadani ayaa bulshada ugu baaqay in la isbarbar taago khayrkani ay bilowday Jimciyadda Nuurul Islaam oo loo baahan yahay in laga wada qayb qaato qurba joog iyo qolqol joogba. marka runtii waxa weeyaan anigu maanta waxaan u haystaa meel maanta igaga khayr badan oo aan istaago aan ka hadlo oo maanta halkan ah ma jirto. laakiin anigu mid baan ballan qaadaya ma sheegayo taas way qarsoonaanaysayo sadaqada lama sheego bad laakiin anigu bil walba wixii aan kari karaayo saa walba uu keeni jiray imika waan ka sii laabaya insha Allah bismillaahi kariim. hawshanna waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala iyaduna inay dhameystirmi doonto sida ugu quruxda badan ay u dhameystirmi doonto waayo aasaaskii baan haynaa. mar haddaan jagadii hayno bilow wanaagsan aan hayno waxa weyn khayrku iska soconaya. xogaa baad sheegateen muxuu ahaa dhaqaale darra Ilaahay baan subhanahu wa ta'ala nig kaalmeyn doona dadkuna iskiin karab daagi doonaan. jimciyaddana waxaan u ducaynaynaa oo ugu ducaynaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu himiladeeda u aqbalo. waa xilina wada saaraa ama fardu ina wada saaraa inaynu kitaabka Ilaahay dayactiro aynu ilaalino. shaqo marka inoo wada taalabay naga qabteen in marka lagu garab galo oo aynu heeliyo hooba isla garab taagno kuweena jooga wadanka gudihiisa iyo kuwa dibadda joogaba. waxaan oran lahaa Boorama hays huursato 45 kun hays guntiga dhiisha isaga dhigto waa iga dardaaran. maanta waxaynu wada yaqiinsanahay kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala sidoo u dayacsan yahay waynu wada yaqiinsanahay. dhulka la dhisayana sidaynu ku garab istaagi lahayn $1 ood ku dartaa maanta adiga qiimo kuma leh ama wiilkuna koobshaa ku soo cabaa gabadhuna $10 bay cream u bixisaa. laakiin $10 creamka maanta siisanayso haddaad ku darsato halkaas waxa suurtagal ah inay bari ka maalin wax ka weyn ku noqoto haddii had niyooto weeyaan. dhammaanteen inagoo isku duuban inteena halkan joogta iyo intay naga maqanba inaynu gacmaha isqabsano oo aynu la shaqayno dhammaanna aynu isku wacyigelino inay khaladka halka ku jira inuu agteena ku dayacnaado. sidoo kale xogayaha gobolka Awdal Mustafa Cabdi Axmed Duudu oo madashaasi ka hadlay ayaa sheegay waxaan ka codsanaynaa wasiirka in qaab tababar loo furo macallimiintii iyo aimada masaajida oo la siiyo tababaro sida loo xifdiyo kitaabka Qur'aanka insha Allah ta'ala
oy wasaaradda iyo culimadu iska kaashadaan biidnillahi kariim. ugu dambeyn wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdillaahi Axmed ayaa ku baaqay in la iska kaashado sidii loo hirgelin lahaa dhismaha xarunta dayactirka kutubka Qur'aanka Kariimka. ayaynu ku dadaalaynaa jamciyadan waa isgarab taageynaa sidaan hore isu garab taagnay insha Allah ta'ala waxa la isugu tagi doonaa sidii loo dhisi lahaa ee loo dhameystiri lahaa dhismaha quruxda badan ee daawanayno hareeraheena quraankeena Ilaahay subhanahu wa ta'ala daryeelo Ilaahay uu daryeelaya inaka u baahi badan haddii Ilaahay subhanahu wa ta'ala u qulno khayrkiisa Ilaahayna wayna caawinaya subhanahu wa ta'ala koryeelaya ugu dambeyntii walaalayaal waxaan ugu ducaynaynaa inteena ka soo qayb gashay kulankeena caawa aynu isku tusaaleynayna baahida ay loo qabto jamciyadu in Ilaahay subhanahu wa ta'ala dambeena ku dhaafo amal saalix Ilaahay nooga dhigo inta ay soo boqoshay ka yimi maxaan ku raadaya caasimada iyo inteena hore u joogtay magaalada qiimaha badan waxa loo baahan yahay in aynu iska kaashano Ilaahayna waxaan ku bari Ilaahay amalka amal san oo saalix Ilaahay nooga dhigo. intaa kadib wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdillaahi Axmed ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay dhismaha xarunta lagu daryeelayo kitaabka Qur'aanka Kariimka oo dhismaheeda si rasmi ah loo bilaabay isla markaana bulshada ugu baaqay in laga wada qayb qaato dhismaha xaruntani. waa Cabsalaan Saaha warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Boorama.